ملياردير مالين تاجر تاني وشركة كلي روجرز waxa ay ku guuleysatay 1.875 milyan oo dollar maanta se mucaawino ay ku nooshahay waxa muuqata xaqiiqada oraahda tirahda wixii si fudud kugu soo gala ayaa si fudud kaaga baxa tani waxa ay ku dhacday gabadhii ugu da'da yareed ee ku guuleysatay nasiibka loo yaqaano Britain Lottery kadib 18 sano oo ka soo wareegtay xilligii ay ku guuleysatay lacagta tan dhan 1.875 milyan ee dollar كالي روجرز waxa ay hadda ku nooshahay lacagta mucaawinada ah ee dawladdu siiso kadib markii ay dhamaan lacagteedii ka soo takhalustay كالي روجرز waxa ay kamid ahayd guuleystayaashii ugu da'da yaraa ee ku guuleysta nasiibka loo yaqaano Britain Lottery 2003 iyadoo markaa da'deedu jirtay 16 sano markii ugu dambeysay waxa ay iska jabisay baabuurkeedii xilli ay waday baabuurka iyadoo cabsan daroogada loo yaqaano kokiinta taas oo markii ay boolisku xidheen laga war helay inay tahay gashaantidii ku guuleysatay lacagtii aadka u tirada badnayd waxana laga sheegaa markii ay heshay lacagta tan aadka u tirada badan leh inay wax badan ku bixisay waxyaabaha amaliyaadka sida isqurxinta soo iibsashada dharka aadka u qaaliga ah iyo isticmaalida daroogooyinka iyadoona qoyskeeda iyo saaxiibadeedna siisay lacag dhan 700,000 oo dollar mar ay ka hadlaysay sida ay u burburisay nolosheeda kadib markii ay noqotay milyaneer maalin taajir ah waxa ay sheegtay markaa wixii ka dambeeyay in ay guursatay ninka kan halka idinka muuqda kaas oo ay sheegtay nolosheeda inuu dhibaatooyin badan u geystay xukuumadda Britain ayaa caruurteeda ka qaadatay kadib markii ay Roger's madaxa la gashay dunida daroogooyinka taas oo iyadana ku abuurtay caqabad weyn oo in ay lacag madaxeeda ka weyn ay ku bixiso isqurxinta jirkeeda si ay ula soo laabato caruurteeda kadib markii ay madaxa la gashay dunida daroogooyinka Kali Roger sidoo kale waxa ay sheegtay inay dad badan isku dayeen u soo dhawaanshaheeda markii ay ogaadeen lacagtan aadka u tirada badan leh ay ku guuleysatay taas oo nolosheeda ku abuurtay caqabado badan oo nafsiyan ah haddaba adigaagan daawanaya ma la isdhihi karaa lacagtu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka bini'aadanka khalkhalka ku abuuri kara waa diiwaanka la yaabka sheekooyinka ku fari maaye adiguba isfar faalada iyo faafintaankuba wax la isfaro ma aha halkaad kala socotaana waa bogogeena rasmiga ah ee sida YouTube-ka iyo Facebook-ka nagu soo bir